hadday noqon lahayd mataqaana isheeg ardayga inuu xorriyadiisa iyo documentationkiisa iyo officekiisiiba waa isaga iyo ardayga iyo officekaba ay noqdaan kuwo maaragtay isku xor u ah taa ayaa waxaa ay safaaraddu samaysay soomaaliya caqabad ku noqoto ay kala dhex istaagtay marka taas ayaana keentay inay ardaydii la dhibtoodaan lana daalaadacaan muddo badan way marka hadda dhibaatada ugu weyn ee safaaradda Soomaaliya ee Pakistan idinku aad ku qabtaan haddaad tidin ardaydu maxay tahay haddaa ii sharaxdo okay walaal waxaan rabaa inaan kuu sharaxo dhowr waxyaabood oo kamid ah safaaradda Soomaaliya wax dhibaatooyinka aan ku qabno waxa kamid ah horta inaan anagu markii hore oo ay dawlad la'aanta aanu ahayn fiidiyaasha iyo documentationku waa ay noo fududaayeen oo waxaanu ku qaadan jirnay inaanu ku helno maalmo iyo isbuucyo safaaradda Soomaaliya waxa ay isticmaashay order xafiisyada ah in ay soo xirto dhammaan ardayda iyo xafiiska inay kala xirto taasna waxaa nagu keentay caqabad oo iminka haddii aan damco inaan fiisa raadsado waxay igu qaadanaysaa 7 bilood halkii 2010 iyo 99 iyo 2005 ardaydu ku heli jiray 3 maalmood iyo 4 maalmood problem ay safaaraddu lagu hayso oo ardayda ku caburinayso aragtidooda ayaa taas ayay ka mid tahay fiisihii dalku jooga iyo fiisihii dalku galka intaba waan gartay marka aye talabaadi waxa ay tahay ardayda markii uu halkan yimaado waxa uu la kulmaa maxaa la yidhaahdaa isheeg waxa uu u baahan yahay diiwaan ayay safaaraddu codsatay in ardayga lagu apply gareeyo waxa ka mid ah warqado la yidhaahdo equivalence oo shahaadadiisa halkan iyo shahaadada Soomaaliya in la mideeyo kadibna inay safaaraddu ka samayso dhaqaale shakhsiyada dhaqaale asxaabeed inay ka macnaha safaaradeed inay ka samayso oo ardayga markii equivalence dalbado in la yidhaahdo waxaad bixinaysaa $50 si shahaadad loogu sameeyo waa rul ayadu ay dalbatay laakiin lagu apply gareeyo caqabad bayna ku noqotay muwaadinka wax baranaya 5 sano 10 sano 6 sano soo bartay inuu equivalence sidaasi mararka qaarkood waayo ama dhaqaale ahaan buu suurtagali waayo taasina waxay ka mid tahay caqabada labaad caqabadaha saddexaad waxay tahay xilli ma jirin ardaydu markii uu imaanayo wadanka in uu dalbo fiiyo waxa ay safaarad inuu lacag bixiyo safaaraddu waxay keentay $150 in calaa arday laga qaado ardaygii keenaya familki ee arday walaalkiisa keenaya ama arday kala keenaya oo waxa ay noqotay in dhaqaale taa laga sameeyo iyada la tukeeno فهمت؟ اوكي سفارة waxa ay sameysay shuruucyo ardayda marka uu fiisaha ka qaadanayo Kenya oo kale in ay sameyso inay connection la sameyso halka la tikeedana lacag looga qaado oo ay connection ka sameyso taas waxay noqotay in ardaydaasi uu halkan lacag ku bixiyo meereedana lacag ku bixiyo kala tirkeeda waa caqabad ay safaaraddu la tirkeeda barboosal gareysay فهمت؟ وان ku fahmay marka aan caqabadahaas dhibaatadaas oo dhan miya la wadaagteen madaxda safaaradda wala caqabadahaas waxa kamid ah arday ayaa jirta fiidiyaal waxbarasho lagu keeno oo scholarship ah madarasa scholarship-yada marka la keeno safaaraddu waxa ay dalbanaysaa in ardayga markii ay scholarship sameyso waa inuu ardayga isaga waxayso oo ay daba gasho oo ay xaaladiisa noloshiisa ay because $5,000 arday ka qaadaysaa kursi free ah oo lagu siiyay Soomaalinimo kadibna ardaygaasi marka uu yimaado caqabado badan bay hordhigaysaa waxaanaysaa oo kuraasi lagu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ay lagu siiyay free ayay iibinaysaa markii iibisana ardaydii iibkii ay ka iibisay xataa ugu darayso accommodation service ugu sameynayso ardayga mataqaanaa u baahnaa marka caqabadahani dhan oo idin haysta ardayda halka ku soo hadaatiidin maxaa go'aansateen inaad sameysaan miyaa la wadaagteen madaxda dawladda iyo safaaradda ku dhir xitaa ma kala hadashin si uun weeraan arrinta wax looga qabto walaal horta midda jirta waxa ay tahay dawladda Soomaaliyeed waan isku daynay hadda ka hor inaan fariimo dirno laakiin xafiisyada ugu sarsareeya ee dawladda ayay waxba ka socon la ayeen waxaabay ay ku socon la ayeen fariimaha xafiisyada ugu sareeya intaasna waxa dheer ardaydu waxa uu wadanka u joogaa inuu wax barto oo systemka aqbalo laakiin markii ardayga loogu cabijimeeyo noloshiisa systemkiisa waxbarashadiisa in laga kansani doono la celin doono cabijimeyn badan markuu ardayga helo wuxuu ku qasbanaanayaa in uu raaco system aadan la dagaalami jirin adigoo arday ah oo ku dulminaya marka taas waxay noqotay in la iska daafsado xafiisyada ugu sarreeyay markii loo gudbiyay fariimahana waxa ay noqotay inaysan ka jawaabin cabashooyinka xaqiiqda haddaan tusaale u soo qaato hadda waxaa taagan wiil dhalinyaro ah
oo arday ah ayaa gubtay waa daawataan sida videoga viralka ee suuqa wadanka social media qabsaday marka waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah arday wiilkaas dhalinyaradaas uu gubtay hospitaal baa la dhigay waxaa la weydiiyey documentationkii sidaa la weydiiyey iyo wadanka uu ka socdo waxa uu galay ICU magarata marka safaaradda soomaaliya waxay u jirtaa 5 kilomitr u jirtaa 7 kilomitr kama aysan soo wardeenin dhaqaale iyo soomaalinimo iyo formality hata uguma aysan inaan waan ku fahmay haddii wiilka kugu dhaweeya bal igu dhib sana asna xaaladiisa waxaan kaga wadiyay walaal ninkii inama joogo hospitaalka jira ninkii inama joogo laakiin waan kugu dhiibi waan ku siinayaa numberka laga heli karo haddii ay macquul tahay waya cabashadiina goormay soo bilaabatay oo hadda safaaraddaad ka cabanaysaan wallaahi walaal safaaradda waxay soo bilaabatay 2016 wixii ka dambeeyay soo bilaabatay caqabadaha aan la kulanay waxaa kamid ah target baa kamid ah in ardayga si toos ah ma shakhsi ma target garaysaa kamid ah in shakhsi gaara mataqaanaa team gaara iyo mataqaanaa community gaara oo gobol kasoo jeeda la target gareeyaa kamid ah in community kaleeto lasoo dhaweysto oo communitygii horeeto lagala dhex shaqeeyaa kamid ah in kaaliyadaha safaaraddu ay kala qaybiyo xukun system ah oo aad iyo aad aan ku habbooneyn levelkii laga doonayay ama ay istaahishay xaqiiqdii institutionka meesha ka jira levelkii laga expect gareynayay in uu la dhiingareeyo community mid ka xun ayay mataqaanaa oo aad khas u ah ayay mataqaanaa isha kula dhiingaraysay dhammaan marka waxa weeyaan waxa ay soo bilaabatay 2016 ilaa 15 17 way ugu dambeyn marka hadda maxaa baaqa u jeedinaysaa madaxda Soomaalida ay ku dhageysanayaan si loo xaliyo cabashadiin walaal madaxda Soomaaliya waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda oo qaybsanaha waaxda Aasiya iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha xildhibaanada Soomaaliyeed ee aniga iyo ardayga xanuunsan iyo dhammaan ardayda halkan wax ka baranaysa ku matala Pakistan in ay ardayda dhageystaan ay haystaan documentationkii way haystaan fariimihii aan u dirnay way haystaan cabashooyinkii way la socdaan in ay xaqiiqda muwaadinka Soomaaliyeed in aan sharciga lagu dilin dadka matalaya ee safaaradda u jooga waa in ay si Soomaalinimo leh ay uga horwareejiyaan ama si Soomaalinimo leh ugu amraan inay ugu adeegto Soomaalinimo leh haddii ay intaas samayn karin fadlan dadka muhiimka waxaan u sheegaynaa bari waxaan noqon doonaa siyaasiyiin dadka halka wax ka baranayay waa inay ogaadaan siyaasiyiinta iminka jooga inay dadkani noqonayaan siyaasiyiinta wadanka ku bedelaya way ka warqabaan influence ay reer Pakistan ku leeyihiin Soomaaliya fadlan waxaan codsanaynaa in ay ka soo jawaabaan cabashooyinka ardayda Soomaaliyeed ee reer Pakistan intaasaan codsanaynaa inay ama laga horwareejiyaan ama mataqaanaa gacan adag iyo hadal adag iyo saxiix adag iyo qalin adag lagu taageeraan ayaan doonaya